laba isbuuc ka hor waxay gumaysiga Israa'iil isku dayeen inay xidhaan masjidka al-Aqsa. waxa kale oo ay isku dayeen inay dad Falastiiniyiin ka qaxiyaan xaafadda Sheikh Jarrah, taas oo keentay inay markiiba shacabka Falastiiniyiinta ay banaanbaxyo kala hor yimaadaan ciidamada gumaysiga, kuwaas oo gacan ka hadal isku bedelay. waxayna sidoo kale ciidamada Israa'iil markiiba duqeeyeen gobolka Gaza, taas oo ka xanaajisay Xamaas, gaar ahaan garabka hubaysan ee Al-Ghazaam. waxayna ku rideen dhanka Israa'iil boqolaal gantaala, waxayna ka dhigtay magaalooyinkii waaweynaa ee Israa'iil qaar ay gantaaladu sida roobka ugu daataan. si taalamida hanaankeedii difaaci ay isku haleynaysay muu noqon siday saxaafadda uga sheekayn jireen. arrinkaas oo yuhuuddii ku noolayd magaalooyinka Israa'iil cabsi ku abuurtay, kuna khasabtay Israa'iil inay xabad joojin ku dhawaaqaan, sidoo kale ay ka baxaan masjidka barakaysan ee al-Aqsa iyo xaafadii Sheikh Jarrahba. haddaba daawada balmays weydiisay waxa uu yahay wax gantaalada iyo diyaaradaha hawada duulaya muujiya si loogu rido gantaalo kale oo ka hortaga. ma isweydiisay siday diyaaradaha iyo gantaalada qaarkood uga dhuuntaan hanaanka difaac ee wadamada caalamka qaarkood. aaladan aanu ka hadlayna waa aaladda ugu muhiimsan dhanka gaadiidka hawada, waxaana lagu magacaaba raadaar. raadaarku waa aalad muujisa diyaaradaha iyo gantaalada duulaya gibilka oogada dhulka. sidoo kale raadaarka waxa ka faa'iideysta diyaaradaha shicibka oo iskaga ilaaliya inay isku dhacaan. raadaarku waa aalad wareegta oo bixisa mawjado electromagnet ah. markay mawjadahaasi ku dhacaan walax bira waxay dib ugu soo noqdaan raadaarka, wuxuuna si dhaqsaa ugu ridaa gantaal isagoo ku dhufanaya walaxduu shucaacu ka soo noqonayo. si taalamida raadaarka waxa loo adeegsadaa diyaaradaha caadiga si aanay iskugu dhicin markay hawada marayaan. waxaana jira diyaarado ka gabada raadaarka, waxayna u samaysan yihiin si khaas. diyaaradahaas markuu raadaarku hawada ku sii daayo shucaaca ee uu ku dhaco diyaaradda, shucaacaasi xaggu dib uga noqon lahaa waxay diyaaraddu u jihaysaa meelo kale oo raadaarka ka fogfog, waxaana u sababa qaabka ay diyaaradahaasi u samaysan tahay. ugu dambayntii waxa ikhtiraacay raadaarka markii ugu horreysay in lagu magacaabo Robert Watson sanadii 1890. wuxuuna ninkaasi u dhashay dalka Scotland. haddii aad ka mid tahay dadka ka hela muuqaalada noocan oo kala like saar fiidiyowgan, sidoo kale nagu soo biir nalana wadaag faallada aad ka qabto mawduucan.